توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت توازن الحياة أنت رقيها إذا ارتقيت وجود عالم جميل رسالة لها أتيت فراشة بكل فخر بالورد بالندى التقيت فيا أزيان كل زين بك يزين كل وقت فراشة بكل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada channelkayga iyo video cusub. maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo sidee cayaalkaaga u jeclaysiin kartaa wax akhriska. But before aanan galin topica sida u jeclaysiin kartid cayaalkaaga wax akhriska, waxaan rabaa inaan ka hadlo muhiimo xoogaa yar oo muhiimadaha ay leedahay wax akhriska. Haddaad jeclaatid kugu saacideynayso maxaa la dhihi jiray ama cayaalkaaga waxay ku saacideyn karto wax akhriska haday jeclaadaan markastana wax akhriyaan. waxa ugu horeeyo oo wax akhriska uu cunuga ka saacideynayo waxaa waaye vocabulary-giisa uu badinayaa ama any luqad uu baranayo cunuga wuxuu baranayaa wordyaal cusub uu isticmaalo markii iskoolka oo wax loo diro inuu qoro ama sheeg anywhere oo looga baahdo inuu oo maxaa la dhihi jiray isticmaalo wordyaashaas waxay u kordhinaysaa vocabulary-ga cunuga ee u kordhinaysaa. muhiimada labaad waxaa waaye dadka wax akhriska badan ama qofka wax akhriska oo badan like more xikmad uu ka leeyahay qofka kale oosan wax akhrinin li'anno waxaa tahay waxa akhrisid. marka haddaa wax akhriskaaga uu badan yahay waa aragnimadaadana way badantahay cunugaaga xikmada ee u saacideynaysa and then waxay also ka saacideynaysaa intuu u jeesan lahaa waxyaalahan kale oo waqtiga lagu dhumiyo. hadduu cunuga jecel yahay buug akhriska more wuxuu waqtigiisa isticmaalaa inuu wax akhriyo. hadduu wax akhriyana thaqaafadiisa way badanaysaa, xikmadiisa way badanaysaa. so intaasaa rabaa muhiimadaha ay leedahay wax akhriska in oo ku ekeeyo. so marka sidee cayaalkaa ku jeclaysiin kartaa wax akhriska? ugu horeyso oo cayaalkaaga ku jeclaysiin kartid wax akhriska waxaa waaye in adiga agtooda cayaalka wax ku akhrisid. cunuga markuu yaryahay uusan baranin sida wax loo akhriyo ama uusan hataa baranin hadalka, wuxuu fiirsanaa waalidkiisa ama qofka weynka uu la joogo cunugaas uu fiirsanaa. qofka weynka waxa u dhahayo li'anno cayaalka oo hooyadooda ama waalidkooda la joogin qofka ka weyn oo markaas korinooyo ee ilaalsanayan ay fiirsanayaan wuxuu sameeyo. so marka adiga inaa wax akhrisid cunuga agtiisa wax ku akhrisid waliba kor u qaadid marka akhrinaysid waxay ka saacideynaysaa cunuga inuu jeclaado wax akhriska li'anno wax kasta uu qofkan ka weyn oo hor joogo uu sameeyo cunuga wuxuu isku dayayaa more inuu sameeyo li'anno siibo hooyadiisa cunuga more maxaa la dhihi jiray isheeg uu jecel yahay. so everything ay sameyso everything oo uu ku arko cunuga wuxuu isku dayaa inuu sameeyo si uu like u raaligeliyo ama si ay u jeclaato more camal. marka adiga inaa akhrisid even haddaadan lahayn routine oo wax akhris laakiin any time ama magazine akhrinoosid ama warqad lagu soo diro akhrinoosid cunuga agtiisa haddaa ku akhrisid oo like kor u qaadid waxay ka saacideynaysaa maxaa la dhihi jiray inuu oo jeclaado wax akhriska. also waliba waxaa fiican cayaalka inay oo camal ama story ama wax inaa u akhrisid the more like cunuga tusisid buugag ama agtiisa ku akhrisid ama isaga u akhrisid the more uu cunugii oo
la qabsado wax akhrinta iyo waxaas uuna jeclaado. soo qodobka koowaad waxaa waaye inaa adiga wax akhrisid aa cunuga tusisid maxaa la dhihi jiray si uu u jeclaado. soo qodobka labaad waxaa waaye aa cunugaaga ku jeclaysiin kartid wax akhriska. waxaa waaye in oo guriga uu ku yaalo maktabad ama inuu guriga yaalaan buugag magazines ama wax un oo la akhriyo inuu guriga ku dhex yaalo. liano cunuga markuu arko guriga inay buug yaalaan ama maktabad hadaa leedahay wuxuu arkayaa maxaa la dhihi jiray inay wax akhriska part of life inay tahay, inay nolosha ka mid tahay, inay maxaa la dhihi jiray ahaan kaliya inay iskoolka wax loo like homework ahaan inay wax loo akhrininba laakiin loo akhriyo maxaa la dhihi jiray wax muhiim ahoo inay tahay oo lifeka ka mid ah. liano cunuga markuu associate gareeyo wax akhriska iyo homework ma jeclaanayo. liano qof homework jecel ama oo ama exam ama waxaas jecel ma jiro. soo cunuga hadduu oo isku barbar dhigo like isku associate gareeyo wax akhriski iyo homework iyo shaqo iskool kaliya markaas wax akhriska ma jeclaanayo. laakiin hadduu u arko inay tahay wax oo nolosha ka mid ah wax akhriska markaas cunuga waxay ku saacideynaysaa inuu jeclaado inuu wax akhriyo. maxaa la dhihi jiray qodobka labaadna kaas waaye. aniga personally maxaa la dhihi jiray ani iyo walaalahaybo markaa yaryareen waxaa u jecleen wax akhriska. ani personally aada u jeclaa wax akhriska waxaana keenaysay liano aabahay guriga waxa u taalay maktabad weyn oo buuga kaga buuxan and every timena buugu noo keen jiray. so taasaa keentay inaa wax akhriska jeclaan. hadda hataa even though maxaa distractionka uu badan yahay still buug hadaa arko aa ka helo waxaa jeclahay inaa soo qaato. intaas waxaa jeclahay wax inaa akhriyoba. sometimes waa bilaabee waa iska daanay haddana liano like telefoon markaa haysatid waa distractionkaaga uu badan yahay. soo marka waxaa ii keentay inaa jeclaado wax akhriska liano aabahay maktabaduu lahaa taasaa ii keenaysay oo walaalahay hataa u keentay. soo marka taasaa lagu dhahayaa maktabad gurigaaga inay kugu taal ama buuga ku dhex yaalaan muhiim waaye liano cunuga waxaa tusinaysaa inuu lifeka ka mid yahay wax akhriska. qodobka labaad kaas waaye. qodobka saddexaad uguna dambeeya waxaa waaye cayaalkaa ku jeclaysiin kartid wax akhriska in buugagta ayaga enjoy gareeyaan inaa u keentid toobikyaasha cunug cayaalkaaga jecel yihiin inaa u keentid toobikyaasha ay jecel yihiin. like hadda markii uu cunuga weynaado like wuxuu la soo baxaa interest adiga buugta u akhrinaysid waxaa laga yaabaa adi isleedahay maxaa la dhihi jiray muhiim waaye cunugan inuusan muhiim u ahayn. soo markaa buug cunuga u doonaysid waxaa fiican in isaga kaxaysatid oo buugta oo isaga lasoo gadid. cunuga aad markuu u yaryahay jas waxaa laga yaabaa picture kale inuu ka helo uu saas usoo qaato buuga laakiin damoor u weynaado damoor oo maxaa la dhihi jiray uu garto exactly wuxuu jecel yahay inuu akhriyo. soo marka adiga jas waxaa lagaa rabaa cunuga markaa buug usoo qaadaysid kaligaa inaadan bixin oo usoo qaadin laakiin cunuga intaa kaxaysatid buuga uu ka helo usoo qaadid u akhrisid intuu yaryahay. markuu weynaadana inaa waqti isla samaysataan isla akhrisiin oo ama adi ku dhahdid ii akhri sheekada adina dhageysatid. soo marka saddexdaas qodob muhiim ah si cayaalkaaga u jeclaysiisid wax akhriska. haddana every time waxaa waaye horta intaadan cunugaaga oo waxa dhihin sameey adiga waa inaa sameynayso liano actionkaaga cunuga uu more fiirinaadan waxaa dhehaysid liano maanta dhan hadaa wax u sheegaysid waxaa laga yaabaa inuusan waxaas qaadanoynba laakiin uu qaadanayo exactly adi waxaa sameynaysid
لأنه most of the time aniga like bini aadamka isaga ma isgaran karo waxyaalaha aa sameynoosid like oo adigoonan ogeyn sameynoosid oo cunugaaga aruursana laakiin every time wixii u sheegaysaa at the same time waxaa dhahaysaa cunugan why waxaan u sameyn la'yahay waxaana keenaysa li'anno actionkaagu qaadanayo hadalkaaga ma qaadanayo so marka haddaa rabtid cunugaaga inuu wax akhris jeclaado adiga waa inaa wax akhrinoosid waa like sometimes adigoo jecel wax akhriska inaa sameysid but at the same time like ayaamaha bilaabay waa iska daanaysaa so it's hard but laakiin the more ma arkinoo isku aragtid inaa oo cunugaaga uu ku fiirinayo adigana wax kale sameynoosid waxaa fiican haddaa awoodid inaa oo like wixii cunugan dhehaysi samee inaa isku daydid inaa sameysid li'anno maxaa dhihi jiray adigu cunuga ku fiirsanaya so saddexdaas qodob muhiim ah in order cunugaaga ku jeclaysid wax akhriska I hope inaa oo wax ka faa'iideen maxaa dhihi jiray sheeg ilaahayna hanoo fududeeyo it's not easy and a lot of maxaa dhihi jiray like caadooyin laga rabaa in iska bedeshid marka ama waalid noqotid ama hooyo ama aabahadaa noqotid li'anno maxaa dhihi jiray markaan adiga kaliya waxaan kuma quseeyo adiga iyo waxay adiga sameynoosid cunuga isagana oo waxaas like adigoonan ogeyn like aruursanayso more inaa oo maskaxdaada ay joogto waxa ka fiirsatid waxa sameynaysid fiican oo haddaa cunugaaga rabtid inuu oo cunug oo meel kasoo baxo noqdo rabtidan waxaa laga rabaa adiga in isku daydid in maxaa dhihi jiray change garaysid I know change is hard but laakiin waxa inaad taraagaraysid marna wax maka dhimayso so marka isku taraagaray ilaahayna alhanoo fududeeyo ducadana badsana insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh